jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay ka soo horjeedaa warbixinta ka soo baxday qiimeynta waxqabadka dekedaha ee uu daabacay bangiga adduunka oo kaashanaya hay'adda S&P Global Market Intelligence. saas ayaa waxay ku dhigan tahay warbixin ka soo baxday madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti. warbixintaas ayaa waxa ay sheegaysaa in qiimeyntaasi ay tahay mid ka fog xaqiiqda kadib markii qiimeyntaas ay soo saartay bangiga adduunku tirada kala horeynta adeegyada dekedaha wadamada beesha caalamka. qiimeynta bangiga adduunka ee sanadkii 2023 ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dekeda Djibouti ay soo gashay kaalinta 379 taas oo ah waxaan aqliga galayn oo meel ka dhac ku ah adeegyada dekedaha jamhuuriyadda Djibouti. jamhuuriyadda Djibouti ee waxa sanadkii 2023 ay xoojisay qalabka casriyeysan ee horumarinta adeegyada dekedaha iyadoo marsada SGTD ay la soo wareegtay qalabkii ugu dambeeyay ee soo dhaweynta maraakiibka adduunka ugu waaweyn taas oo dardar gelisay adeegyada dekedaasi iyadoo dekedaasi ka dhigtay dekeda ugu horeysa wadamada ka hooseeya saxaraha qaaradda Afrika. dowladda Djibouti ee waxa ay hoosta ka xidhay dhaqaalaha Afrika ka faalotay adduunka ay ka dhac ku tahay qaranka jamhuuriyadda Djibouti waxaana xukuumadda ka go'an inay sii wado dadaalka horumarinta dekedaha jamhuuriyadda Djibouti si loo gaaro ujeedooyinka horumareed ee dalka.